magacaygu waa Faadumo Deeqo Macalin. Caawa intuu joogno maxaa waaye inaan ka hadalno xanuunka isku furanka. Xanuunka isku furankana xanuun waaye horta cudur ma aho. Cudur la iska qaadayna ma aho. Saasaan bulshada u baaqaya. Teeda kale waxa kale aan bulshada u sheegi rabaa maxaa waaye inaa maamooyinka cidaha joogaan infection inta ku dhaca infectionka iska soo gubaan ayadana waan maxaan leenahay ha dhaafina. Maxaa arkaysaa maamo la dhahayo infection laga gubaya infectionka birta lagu gubayo wixii oo nadiif ahayn yaa lagu sii gubaya marna laga yaabaa inaa meesha kaadi burka ka laga duleliyo so kaadida sida ayadana kusoo dareereysaa sida haddana dhaqtar usoo raadsanaysaa teeda kale gabdhaha guryaha lagu umulinaana hala joojiyo Mandera ayaan leeyahay waa ogtihiin hadda waqtiga cidaha lagu umulay ma la joogo teeda kalena isbitaalaan ii dhow qofkii dhaqtar gaari karin oo gabar fulanay haya sida camal nambarkaa naga soo wacayna waan ku caawinaynaa inaan dhaqtar geyno gabadheeda oo si nabad leh ay ugu soo umusho gabdhaha cidaha lagu umulina hala joojiyo bulshada reer Mandera si u tihiin macal renodistan damba so aada ugu dambeynaa markii la dhahaa caafimaadka haweenka iyo maamada iyo cunugeeda so sifa aan Kenyada kale u gaarno aan joojina sheekada cidaha lagu umulay hala joojiyo maamooyinka la guba la infection la guba gabdhaha lagu sameynaa guritaanka fircoonigana hala joojiyo gabdhaha yaryar oo iskuulka la geynayno nimanka la siinayna hala joojiyo gabdhaha iskuul hala geeyo Mandera waa ognahay waa countiga ugu fiican Kenya mzima haddaan dhaha oo iskuul free laga helayo so maxaan leeyahay gabdhaha iskuullada hala geeyo gabdhaha haloo dadaalo waqtigooda hala gaaro waqtigoodana hala siiyo nimanka asalaamu calaykum